sida aad la wada socotaan هزتني نسمات الليالي 14 Oktoobar sanadii tagtay ee 2017 waxay u ahayd ummadda Soomaaliyeed maalin murugo iyo tiiraanyo xambaarsan waa maalin si fudud ay ku qurbaxeen boqolaal caruur hooyooyin da'yar iyo duqow ah musiibooyinka noocan oo kale ah lama ay gaar noqon Soomaaliya ee waa dhacdooyin mararka qaar ka dhaca dunida inteeda kale دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأماني لندى زاه منير هزتني نسمات الليالي inkastoo ay Soomaalidu tahay dadyo la daaladhacaya ku dhawaad 30 sano oo dawladnimo la'aan ah haddana waxa ay dunida u dhigeen cashir lama ilaawaan ah oo quseeya isgarab istaag walaaltinimo dhammaan qaybihii bulshada dal iyo dibadba Soomaali waxa ay u istaageen gurmadka iyo samata bixinta dadkii ku waxyeeloobay musiibadii qaran ee 14 Oktoobar ayagoo kaashanaya dawladaha muslimiinta ah ee u istaagay in ayna soo garab istaagaan sida dawladaha Qatar, Turkiga iyo wadamo kale Soomaalida Suudaan waxa ay kaalin mug leh firfircoon oo damiir ay ku jirto ka qaateen gurmadka walaalahood ayagoo dhabarka u dhigtay 82 kamid ah dhibanayaashii musiibadii qaran oo la keenay magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan si loogu daweeyo looma kala harin dhammaan reer Suudaan arday ganacsato iyo hooyooyinba soo dhaweynta dhaawacyadan oo la keenay maalin kadib markii qaraxa uu dhacay waxa ayna dareenkooda ku muujiyeen wixii dhacay ayagoo dhanka kalena muujiyay sida ay ugu heelan yihiin garab istaaga hiil iyo hooba leh kadib markii ay gegida diyaaradaha Khartoum uga hortageen dhaawacyadii sidii dhaawacii dadkii lagu xasuuqay 14 Oktoobar magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Soobe runtii anoo ku hadlayo magaca safaaradda iyo dhammaan dadka igala shaqeeya safaaradda waxaan runtii soo qalab qaadanay sidii aan ugu soo dhaweyn lahayn sidoo kale soo dhaweynta waxaa nagala qayb qaatay dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Suudaan iyo jaaliyadii iyo wixii Soomaalinimo sheeganayo oo idil waxaan joognaa magaalada Khartoum dalka Suudaan waxaa caawan soo gaaray dadkii Soomaalida ahaa oo dhaawac ah oo Muqdisho laga keenay oo ay keentay diyaaradda Qatariya oo Suudaan lagu dabiibayo runtii Soomaalida looma kala harin soo dhaweyntooda haday tahay safaaradii haday tahay dhalinyaradii haday tahay dadkii kale culimada ahaa runtii maanta waxaan ku soo dhaweynay dalka Suudaan ee Khartoum dadkii ku dhaawacmay oo musiibadii weyneed ee ka dhacday Soomaaliya runtii waxaan mahadcelin weyn u soo jeedinaynaa dawladda Qatar oo walaalaha aan nahay iyo dawladda Suudaan oo soo dhaweysay waxa ina soo gaaray 28 dhaawac 28 qof oo la jirto oo ayaga muraaqib u ah waan ku mahadsan tahay dawladda Qatar marka koowaad marka labaad dawladda Suudaan oo soo qaabishay waxaan boqolkiiba caawa aan shucuurteena aan la qaybsanaynaa anagoo ku sugan kumanaan arday Soomaaliyeed iyo jaaliyadda Soomaaliyeed dalka Suudaan ku sugan waxaan caawa u taaganahay halkan inaan ka dhidhino garabkeena siino inta ay nagu jirto dhibac dhiig ahna inaan u shubno shacabkeena Soomaaliyeed magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Axmed runtii waxaan aad iyo aad uga xumahay qaraxii lagu halaagsamay ee Muqdisho ka dhacay 14 Oktoobar intii dhimatay Ilaahay u naxariista inta dhaawacana bogsiimo degdeg ah ayaan eeba uga codsanayaan dhammaan Soomaalida meel kasta oo ay joogaan waxaan ka codsan lahaa inaan dhammaanteen si wada jir boogaheena aan u dhayano anigoo kamid ah ardayda Soomaaliyeed oo Suudaan ku nool waxaan aad uga tacsiyeenayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan horta falka xun oo soo gaaray aad baan ugu shucuurteena ugu murugoonaysaa waana ka tacsiyeenaynaa murugadana waa la qaybsanaa meel kasta aan joogno waxaan leeyahay Ilaahay samir iimaan naga siiyo inta xanuunsan oo hadda dhaawacyadana oo meelaha loo kala qaado Ilaahay caafimaad ha siiyo magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Ibraahim oo kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan Suudaan
maanta waxaan halkan u taagannahay inaan shucuurteena ku muujino iyo dareenkeena aadkii aad ku kacsaneen maanta la soo koobi karin wixii ka dhacay caasimadda dalka hooyo ee Muqdisho taas oo aan kula wadaagayno walaalaheen caawa waxaan halkan u taagannahay inaan dareenkayga shucuurteeda la qaybsano walaalahayga qaraxii maanta foosho xumaa ka dhacay caasimadda dalkeena hooyo Muqdisho caawa qayb kamid ah halkan timid dhaawacii ayaanu caawa halkan u taagannahay inaan ku soo dhaweyno waxaan ku caawin karnaa ku caawino haddii dhiig noqoto inaan shubno haddaan gargaar deegaan noqoto inaan u fidino iyo haddii inta joogaanba aan la joogno aan dhaawaciyo dhibka la qaybsano ficlan waa ay ka run sheegeen reer Suudaan ballanqaadkoodii habeenkii la keenay Suudaan dhaawacyada waxaa si damqasho iyo dareen ay ku dheehan tahay ugu istaagay caawintooda Soomaalidii reer Suudaan oo aan u kala harin dhalinyaro duqow ganacsato iyo maamulkii safaaradda hooyooyinka iyo hablaha halkan joogana kama ay gaabin kaalintooda si firfircooni leh dadaal iyo kartina ay ka muuqato ay u garab istaageen walaalahood dhiban durbadiiba waxaa la yagleelay guddiyo ilaa 3 qaybood ka kooban qaybta dhalinyarada qaybta ganacsatada iyo odayaasha iyo qayb kale oo dhaqaatiir ah kuwa oo dhammaantood si dar alla ah isugu xilqaamay waxaa la yaab ahayd iska warqabka ixtiraamka iyo kala dambeyntii ay ku howlgaleen taas oo keentay guusha ay ka gaareen hawshii cusleed ee gurmadka oo ay u istaageen reer Suudaan guddiga gurmadka iyo Soomaalida kale ee reer Suudaan waxa ay si joogto ah maalin walba u kormeeri jireen si xaaladooda caafimaad ay uga warqabaan dhaawacyada ku jira isbitaalada intii ay dhaawacyadu ku jireen isbitaalada waxaa geeriyooday oo Allah uu oofsaday ilaa 5 bukaan kuwa oo mid kamid ahi ku soo dhintay diyaaradii waday intii aanu soo gaarin magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan meedkiisii ayaana diyaaradda laga soo dejiyay xilliga dhaawacyada laga soo dadgureynayay waxaa dib dalkii loogu celiyay kadib markii ay bogsoodeen ayagoo caafimaad qaba ilaa iyo 60 kamid ah 82 la keenay Suudaan 17 bukaan ayaa jooga kuwa oo wali helaya kaalmo caafimaad waxaana la rajeynayaa in dhawaan ay dalka dib ugu laabtaan marka ay dhameystaan howlahooda caafimaad insha Allah ummadii Soomaaliyeed ee loo gurmatay ee halkaan isugu joogtay ama reer Suudaan aheeday ama Soomaaliya joogtay ama adduunka qaybihiisa kala duwan joogtay aad iyo aad ugu mahadcelinayaa siiba reer Suudaan si aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa maxaa yeelay waxaan la kulanay dad aad iyo aad u cajiib ah u wanaagsan u walaal jecel u islaamnimo jecel أهلنا جعل صومالي نمضوا أدي أدوج وين تاي أيام هالكان كلا كلناي قاصة جدي
soomaaliyeed ee halkaan laga dhisay run ahaantii hawl culus oo Soomaali oo dhan ay u kala hadhin ayay ahayd hawshii halka ka dhacday 81 qof oo dhaawaca iyo 81 kale oo la socota ayaa halkan loogu keenay dadka iyaga ahaa caawa dufcadii ugu horeysay ayaa maaragtay caafimaad ku laabanaysa oo ah 13 qof taana waa guul maaragtay Soomaali oo dhan u soo hooyatay inta dambana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu nagu asturo si guul ahaan uu noogu dhameeyo walaalihii hawsha ka qayb qaatay oo dhanna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fi miisaan xasanaati waan ka yeelo marka laga soo tago deeqdii caafimaad ee dowladda Qatar waxaa dadkani ku baxay ku dhawaad 100,000 oo dollar taa oo 50 kamid ah ay bixiyeen guddiga gurmadka dhaawacyada ee Soomaaliya ka howlgala halka 20,000 oo dollar uu bixiyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Jawaari in ka badan 10,000 oo dollarna waxa ay ka baxday qasnada guddiga ganacsatada ee reer Suudaan taas oo ay dheer tahay xisaabaad aan la xusin oo ay iska arooriyeen ganacsatada haweenka iyo ardayda reer Suudaan waxaa jirta sidoo kale lacag ka timid marwada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud marwo Sahar Cumar Indhayar Dr. Sheekh Cabdi Fataax Maxamed Barqadle oo ay u garteen in uu noqdo mas'uulka ugu sareeya ee dhammaan guddiyadii howlgalayay ayaa ii xaqiijiyay inay jirto lacago loo qaybiyay kal hore dadkii dhaawacyada ahaa sidoo kale xalay iyo caawa waxa ay qofkiiba 1,400 oo dollar guddoonsiiyeen guddigii gurmadka dhaawacyada dadkii dhaawacyada ahaa ee ku haray magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan guddigani ka dhisan magaalada Khartoum ee gurmadka dadkii musiibada ku waxyeeloobay waxa ay had iyo jeer kulmin jireen dadka reer Suudaan si ay ugu wargeliyaan halka xaalka uu marayo isla markaana ay uga tala qaataan waxa amaan bogaadin iyo duco mudan dhammaan halyeeyadii u dhafray u dhibaatooday u dhabar adeegay ee welina u taagan caawinta walaalahood dhibaataysan waxa ayaguna amaan mudan madaxda safaaradda Soomaalida ee dalka Suudaan oo ayaguna kaalintoodii ka soo baxay gunaanad waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka bariyaa in uu jannadiisii ugu bishaareeyo dadkii ku dhintay musiibadii qaran kuwii dhaawacyada uu ka soo gaarana uu caafimaad ee baka siiyo idinkuna igula duceeya